أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أعزائي الكرام وقلب الجنور الجنال وإذن الله قلب وناكسان بساتين في عنتين دمانتين أصحابتي دخالقة maanta waxaa idin wadaa alaabtan qof walba gurigiisa uu ka heli karaa maxay tahay alaabtan waa sokor waa faasaliin waa liima dhanaan waxaan soo bandhigayaa maanta sida faruuriyaha madmadowga looga baabi'iyo oo looga dhigo faruuro gaduudan oo qurux badan adigoo rooseetana aana marsanin okay kilibkan waa kilib iska gaaban laakiin aad u faa'iido badan maxaa sameysanaynaa laba qaado oo sokor ah laba qaado yar oo sokor ah halkaa ku shubanaynaa marka aan ku shubano kadib waxaa soo qaadanaynaa liin dhanaan jabaan ugu filan okay jabka fiiriisaan ugu filan weliba beecaan yar ka rabnaa إلا ماشى الله مرنا هاد حجم جيد بحرنت هاي ماشى الله مرنا يا حواي فرور تواي مقطع اوكي حسمين هنا ووضن خانة كان واي فاسلين فائدة بدن أيوب ليه هاي جركة ودن فائدة بدن أيوب ليه حنا غفلن هل كان خادو يعني غفلن اوكي halkan waxaan ugu diyaarsan sokortii liima dhanaantii iyo qaadadii faasaliinta ahayd mar walba waxaa lagaa rabaa si inaad u qastid aad inaad isugu qastida lagaa rabaa fiican ilaa ay iska dhex gasho sababtoo waxaa mari rabtaa meel softi dadka waxa u fiican tahay faruuraha qalqaleelka ka noqonayo u maleysad mar walba qof qandha ka soo kacay ama oo jiran aan kale faruuraha qaleelka kadib waa soo qaadanaysa faruurteedu diyaar ku ah ana hadda halkan faruurteedu kuma soo bandhigi karo saas ay u marinaysa waa ku rugaysa sokortii liin dhanaantii faasaliintii ma sha Allah saas marka u marisid maalin walba hadda marsatid ama laba maalin ka bacd hal mar hadaa marsatid natiijadu waa helaysaa faruuriyo qurux ay ku noqonayaan madmadowga iyo qolof kici waxaasoo dhan aad ay ugu fiicnaanayaan asxaabay waxaa idin leeyahay waa idin jeclaa meel walba dunida ka joogtaan kilibkeena yaraa intaas ayuu noogu ekyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subscribe fadlan subscribe share like comment yaa leega iloobin asxaabteeda qaaliga ah waa idin jeclahay bye bye to